بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى يسوى كورمية أهواش maalinta qiyaame cadaabka iyo xanuunkiisa ayuu ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi: yawaddu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniih. wuxuu jeclaan doonaa, wuxuu tamanin doonaa mujrimku inuu cadaabka iskaga furto maalinta qiyaame cadaabkeeda weeye wiilkiisa inuu iskaga furto, wa saaxibatihi xaaskiisa inuu iskaga furto cadaabka, wa akhiihi walaalkii inuu iskaga furto cadaabka, wa fasiilatihi alatii tu'wiih. wuxuu jeclaan doonaa ehelkiisii, qaraabadiisii, faamilkiisii soo dhoweyn jiray cadaabta inuu iskaga furto. waman fi lardi jamiican uma yunjiih. wuxuu jeclaan doonaa oo uu tamanin doonaa inuu cadaabka iskaga furto adduunka dhan korkiisa waxa saaran, bal in uu badbaado. walaalayaal, ilaahay baa subxaanahu watacaala inoo sheegay cadaabka waxa lagaga badbaadayo, kitaabkiisuna ku caddeeyey subxaanahu watacaala. wuxuu yidhi: yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim. allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi: kuwa xaqa rumeeyeyow, ma idiin sheegaa tijaaro, ganacsi, beecshiro, business idinka badbaadinaya cadaab xanuun badan. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi: tu'minuuna billaahi wa rasuulih. ilaahay iyo subxaanahu watacaala rasuulkiisa ayaad rumaynaysaan, wa tujaahiduuna fii sabiilillaah, jidka ilaahayna waad ku jahaadaysaan idinkoo jidkaa ilaahay u huraya biamwaalikum wa anfusikum, xoolihiinna iyo naftiinnaba. daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun. kii naas baana idin khayr badan haddaad tihiin dad wax garanaya, dad wax kala garanaysaan. walaalayaalow, maanta ayaa inala gudboon inaynu samayno wixii inaga badbaadin lahaa cadaabka xanuunka badan ee qofku uu jeclaan doono inuu isku furto ilmihiisa, xaaskiisa, walaalihiis, qaraabadiisa iyo cid walba. walaalayaalow, maalintaas aynaga horrayse maantaanan joognaa waddadii aan cadaabka kaga badbaadi lahayn, inaan raacno. allah subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa dhammaanteen inuu cadaabkiisa inaga badbaadiyo.